daayina wallahayow waan ku dacwoonay dabalaha dhan naga mari taacuunka naga qabo wax ka daranna naga daa dhalinyarada maab oo kuwa si mutadawacnimo u shaqeeyo ayaa saaka wacyigelin ka sameeyay xaafada 15aad gaar ahaan soonka shanaad iyagoona halkaas bulshada ku gaarsiiyay caagada ay ku jireen biyo lagu farxasho iyo waliba sidoo kale shaambo maaha markii koobaad ee dhalinyarada maab ay sameeyeen arintan oo kale iyagoona ku dhawaad 70 xaafadood oo kamid ah maamulka magaalada Jigjiga u soo qaybiyay iyadoona dhalinyarada u dhalatay deegaanka ay waajibkooda gudanayaan 60 qoys oo hore waan soo bixinay maantana waxa wadnaa 40 qoys u dambeeyay ayaan hadda halkan ku siineynay dad arkaysaan kulay dadkana waad aragteen tabashada iyo waxay tabanayaan waa dad caasimadda dhexdeedii jooga waxaan anigu leeyahay macnaha dadkana mudnaanta mudan in la siiyo sanitation kooda ama nadaafadda in dadkii wacyigelinta la siinayo waa dadkani TV ma isticmaalaan radio ma isticmaalaan social media ma isticmaalaan kama warqabaanba inuu xanuunkani soo gaaray still dadkani muu soo gaarin marka dadka qaar kood weydiiso warba kama hayaan suuqa inay tagaan oo ay soo ogaadaan mooyaane laakiin wax trainina ama wax TV-ga ka socda laga sheekanayo maalin habeen war kama qabaan oo mooga imika intan ilaa 10 cisho aan soo wadnay muddo 10 cisho 10 cisho ugu dambeeyay ayaan soo wadnay aan daraasaadka wadnay marka daraasaadadii aan wadnay maanta waxaan bilownay inaan adoo muddadan aan soo wadnay daraasaadadii laakiin siintana waan wadnay oo anagoo dhinacna daraasaadka wadna dhinacna waxaan siineynay dadka maanta waxaan halkan isugu nimid waxa weeyo in aan bulshada wacyigelino hadda goor bulshada si fiican soo wacyigelinay dhibaatooyinka coronavirus ama caabuqa coronavirus uu leeyahay maanta waxaan halkan isugu nimid 70 qoys oo hadda ka hor aan soo qaybinay baa jiray arrimaha sanitationka iyo maanta qana arrimaha ka hortagna sida biyo saabuun shaambo waxyaalaha noocaas oo kala marka waxaan rabaa halkan inaan ka sheego ururkan in badan baanu ma taqaanaa arrimahan ka soo hadalnay waxaa jira dhibaatooyin badan oo ma taqaanaa wacyigelin la'aan ka muuqata bulshadeena dhexdeena tusaale ahaan waxaan tusaale soo qaadanay oo rabaa inaan ka hadlo dadka baahida gaarka qaba iyo coronavirus ama caabuqa coronavirus xiriirka ka dhaxeeya iyo gaabka ka muuqda tusaale ahaan dadka baahida gaarka qaba sida dadka caagolayaasha sida ma taqaanaa dadka indhoolayaasha dadka ma taqaanaa dhagahala dadka qaabkii loo fahansiin lahaa caabuqan inuu yahay problem jira dadkuna ku dhimanayaan daawona uusan lahayn qaabkii looga dhaadhicin lahaa ayaa u taaganahay anagu mar walba inaan dadka u gudbino waxaa jira inta badan macnaha dadka caafimaadka ama khibrada caafimaadku ay sheegeen in macnaha distance-ga la ilaaliyo in distance-ga la ilaaliyo la kala fogaansho in ma taqaanaa gacmaha iyo nadaafadda ama hygiene-ka si fiican loogu dadaalo iyaga laftigoodana ma taqaanaa inay soo dhawaan si cudurkaas uu wada saameyn waxa muhiim ah in dadku ay ku baraarugsanaadaan awaamirta ay dawladdu bixinayso awaamirta ay bixinayaan dhalinyarta kala duwan ee arrimahan ka shaqeynaya macnaha isxilqaamay inay bulshadooda u shaqeeyaan arintan yaa naga caawidin arrintan wallahi aniga cid naga caawso ma jirto annaga isku tashanay annaga jeebkayaga waxaan go'aan qaadanay in macnaha baahida ballaadhan jirtay inaan ka fargarin karin laakiin at least dadka sidii aan wax ku gaarsiin lahayn annaga karaankayaga bulshada ku dhaqan aagaasi ayaa soo dhaweeyay dadaalada dhalinyarada maab ay wadaan iyagoona ku booriyo inay si laba jibaaraan halka sidoo kale ay cabasho xoogan ka muujiyeen inay biyo la'aan xoogan ay haysato xaafadaasi isla markaasina caqabad ay ku noqon karto ka hortagga caabuqa COVID-19 waxaana loo keenay weel farxal iyo shaambo iyo saabuun baa la siiyay dhalinyartan isxil qaantay aad bay u mahadsan yihiin laakiin waxaasoo dhan wax nooga daran baan dawladda ka codsanaynaa oo ah biyo la'aan maba helaba biyo la'aan maxaa biyo aan farxalanaa anagoo biyo bahayn waxaan qada ku karsana ma helo taangiyaa jira laba xaba jahadan dhan ilaa iyo Sheekh Cali Guure 4 maalmood maalin baa lagu soo shubaya bulshada meesha degan waa dhowr kun oo qoys weeyaan marka waxa koowaad aynu codsanayna anagu faraxalka iyo caafimaadka iyo ka hortagga koowaad laba waa leyd saddex waanu ku celcelinayna waa biyo weeyaan waxa koowaad aynu loo qabtaa anaga biyaha noqoto kolka kadib baanu faraxalan karnaa nadaafad hagaajin karnaa cudurka ka hortagi karayna dhalinyaradan isxilqaamtay ee maamulka waanu mahadnaqayaa horta waana nu ducaynayaa kor socda baan idin leeyahay urur jirana ahaaday bidmillaahi kariim ilaahay intaasan idin weydiiyay saadarteed dadka dhibaatooyin badan baa haysta nimayow xanuunna jiro waa la cabsanayaa biyo ma jiraan layd ma jira xitaa waxa jira inta qashinka suuqa laga soo qaaday habeen madowda meesho bilaa iftiin la noogu daadiyaa qurunka xaafadda horteeda nadaafad lii baa jirta dhibaatooyin badan baa jira halkan imika hortiinan tirar badarkaysiin layd baanu gelinay baa dawladda lagu yiri halkan ana lagu joojiyay sida darteed horta dhibaatooyin badan baa jira